Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxa aan rabaa inaan ka hadlo oo wax ka iraahdo ninkii Cali ahaa. I am Cali, ninkii la baxay ee youtuberka ahaa. Dib baan u raacay youtube-kiisii markii la yiri been bay ahayd wixii oo dhan. Markaasaan waxaan daawaday ninku inuu youtuber yahay oo uu ku kala kacsanayay gabdhahan iyo arrintan. Waxa weeye ilaa iyo Muqdisho ilaa iyo Addis Ababa ayuu tagayaa. Wuxuu soo sameynayay xataa fiidiyoyo oo prank ah. Marka ninku youtuber buu ahaa, balse wuxuu sheegay oo dhan waxay noqdeen been bay noqdeen. Gubataa ma maqli jirto, gubataa bay noqdeen. Wixii uu sheegayo dhan gabdhuhu meesha isugu keenay iyo xoolihii waan leeyahay uu lahaa iyo Caliyow habar yar sidaa maxaa noogu gash yaa dadkii ku ammaanay ee ammaanta kaala dul dhacay baan ku jiray. Inkastoo aan nacayay, maxaan ku iraahdaa inaan ku niyad jabiyo wiil dhalinyaro ah adigoo ah, wiil Soomaaliyeed ah, wiilkaygoo kale ah, ama walaalkayoo kale ah, ama ina adeerkayoo kale, whatever. Wax walba la isu noqon karaa. Marka inaan ku niyad jabiyo ayaan diidayay, balse dhaqamada aad ku dhaqmaysid ma jeclaysan runtii. Fiidiyowgii horena waan ka soo sheegay, kaga soo hadlay, balse waxaan kugu ammaanay in aad Sweden adigoo ama ku dhashay, ma garanayo inaad ku dhalatay iyo inaad timi. Kulay Soomaaliga si fiican baa u taqaanaa. Inkastoo Soomaaligaagu uu banaadir yahay, haddana waxaan is iri ma taqaanaa amuu ku koray noloshan uu ku dhex jiro, whatever, xataa inay been tahay xoogaa aanay macquul ahayn waan dareemayay. Sababtoo ah wiil yaroo intaa la eg inuu bixiyo 200 oo neef oo la ah, inuu haysto waxaanoo mishin ah, mishinadan wada qaaliga ah, kuwa lo'da lagu lisayo, kuwa xoolaha siinaya cunada, kuwa maxaan ku iraahdaa ii sheeg cagafta beeraha qodaysa, greenhouse-yada, maxaan ku iraahdaa guriga beeraha bogcadda intay la egto weynanka intay la eg tahay, intay balaad la eg tahay. Wax macquul ah ma ahayn, balse waxaan ku dhisay niyadda. Waxa weeye waxaan jecelahay dadka haddii ay horumar sameynayaan inaan niyadda u dhiso. Whatever, halahaan haddaad doonto, balse haddaad ka shaqaysaba yaa ood xirfadeeda leedahay oo aad u bareedhay inaad qabowgaas ka shaqayso adigoo Soomaali ah, lo'da ka shaqayso, waa rakarooni weeye, nin ragaa tahay. Marka waxaan diidaya inaan ku niyad jabiyo, laakiinse inaanay macquul ahayn intaas oo qalab, intaas oo adduun. waa anigii ku dhahay uga faa'iidee dadkaaga. Waxaan kuu dhahayay waxay ahayd in aad ninkaas caddaanka ama qoladaas kulley shirkad ama company hadday yihiin, xataa shaqsiga yeelan kara. Dadkan European-ka waa dad dhulkoodii jooga, dhulkoodii oo opportunity badan leh oo deymo la siiyo. Annaga waan naqaanaa Yurub kulligood deymay ku nool yihiin, deymay qaataan, beeraha ku iibsadaan, dhulka ku iibsadaan, guryaha ku gataan, maxaan ku iraahdaa xoolo ku sameeyaan, beero ku samaystaan, qalab ku gataan. waa la maalgeliyaa, deymaa la siiyaa, waa inay soo ceshaan.
xoogaa bay usoo celiyaan bilba in yaray ceshaan ilaa ay nadiif ka noqonayaan. marka runtii way caddayd inaadan hantidaasoo dhan yeelan karin, laakiin waan kugu dhiirigelinaynay maadaama aad tiri guur xalaal ah baan u socdaa, because guurka xalaasha ah in la hor istaago waa xaraam. qofka guur xalaala mar hadduu ku yiraahdo ka gabo, la raadi, weliba ku dhiirigeli, ku bushgare inuu guursado, waayo waxaad dhisaysaa baytullah oo kale, like masjid adoo dhisaya weeye oo kale. waxa weeye qof xalaal u socdo weligaa waa lagu dhiirigeliyaa, balse garab baa lagu siiyaa. balse haddaa hanti haysana waa loogu daraa, uusan waxba haysan waa loo aroosiyaa. dadka qaar way u aroosiyaan dadka si ajar iyo xasanaad uga helaan. marka waxaan kuugu dhiirigelinayay first one, dhalinyaraa tahay. secondly, waxaa tahay wiil Soomaaliyeed. tan saddexaad, waxaa raadinaysa oo tiri ood sheegtay guur xalaalaan rabaa. marka way aan kaaga hor imaada ma jirin, waxaanan arkay inaad beer u bareedhay qabowgaas Sweden, Soomaalidoo naqaano oo dhul kulul ka yimi, xataa kuwa ku dhashay aanay xataa u bareerin oonan ognahay. marka dee si xun baa noo gasha nin yahow. yaa habaryaro waad nagu ciyaadhay, waa naga xumaysay bahasha. yaa waxaa la yidhi been bay ahayd wixii oo dhan. waan sheegay fiidiyowgaygan ku sheegay in barnaamijyadaas laga sameeyo Yurub iyo North America kulli. dad niman raadinaya naaga ay guursadaan iyo naaga loo keeno, naagaha kala dooranaya, midba mar casumaya, midba mar maxaan ku irahdaa la sheekaysanaya, marba mid la joogayo week ama 2 week. marka waa naqaanaa barnaamijyada sameynaysay, balse waxaanu maqalnay inay been ahaayeen. oo wariye Xudayfi la yiraahdo ayaa ku soo wacay, waa dhageystay. codkaagii buuna ahaa codku. markii hore waxaa tiri cali miyaa, marka lagu yiri haa baa tiri. markuu yiri maxaad arrintaa ma jirtaa, ma waxay kaa tahay run, xaqiiqa miyay kaa tahay? may cali miihi baa tiri, taleefankiina waad ku jadhay. nin kaloo idaajaa la yiraahdo ayaa la ag fadhiyey, waan daawanay. codkaagu saxa waadaxa oon garanaynu ahaa. marka nin yow si xun baa noo gashay, waa ka xumahay, waanu ku hanweyneyn. waxaanu lahayn wiil Soomaaliya oo heerkaas gaari. yaa maasha allah, inkastoo still aadan xumayn, laakiin aad xaaskaaga qarisay, aad sheegtay been ood xaas kalaan raadinayaa tiri. waad guursan kartaa xaas labaad, balse xaaskaagii oo aad ka qarisay, nimanka waa naqaanaa, dumarkana waa naqaana, waa hinaaso miiran, ayaa xaas kale la guursadaa. laakiin gabadhii oo kuu jeeda oo kaa daawanaysa meel walba inaad guursatid gabar kale oo aad 5 soo safto, waxay ahayd wax unbelievable ah runtii, wax oo macquula ma ahayn. laakiin haddee barnaamijkaasaad nagu socodsiinaysa nin yahow. haddii ood rabtid inaad barnaamijkaas nagu socodsiisid oo Soomaali haddaan nahay aad waxaas nagu dhex beerto oo xilliga noo ama muddo waxaas, waxaa weeye waxaas wax fiican ma aha, ma kaa yeelayno, naga daa, wax fiican ma aha. gabdho haddana aad meesha keentay, gabdho akhlaaq islaam aanan ka muuqan. weliba waxaa noogu daran gabdho wada cadaysinaad keentay, mid baa ugu sii daraydba. mid gabigeediiba laabti soo qaawisatay oo candhadii banaanka soo dhigta, wax u qarsoon aan jirin oo taatuuyo leh baad noo keentay. iyo mid labada keliyood banaysatay, waa tii ugu yaraa quruxda badnayd.
runtii dhaqan islaam iyo dhaqan soomaaliyeed ma aha waxan. naga jooji hadda, ha nagu bilaabin, ha nagu furin waddo cusub. haddeeraan qaati ka taaganahay tiktok. warniyow haddeeraan tiktok ka taaganahay qaati oo gabdhihii soomaaliyeed iyo wiilashii nooga waasheen oo gabdhihii ay futada un taagayaan. midna naasay taagaysaa, saas u taagaysaa, halkaa geynaysaa, midna futaday taagaysaa. sababtana lama garanayo. waxa ka dambeeya ma naasahay iibinaysaa candhada, ma futaday iibinaysaa, garan weyne. marka haddeer ha noogu darin barnaamijkan gaaladu ay samayso. ha noogu bilaabin yaan haddeer waddo halaqee mareen aanay noqono haddeer la furin bayj cusuba soomaalida ah. naga jooji. tan kale xaaskaagu miskiinsana kaa ogolaanaysa in 5 naagood iyo aada leedahay 10 kun baa isoo dooratay oo 10 baan ka socday oo 10kii baan 5 kasii socday oo 5tii baan hal kasii rabaa ku daawanaysa. xaaskaagu miskiinsana yaa mise waa kula ogtahay? yaa waa waxay kula ogtahay. haddeer adduunyada waxaa la arkay dad lacag uun u jeeda keli ah. laa xawla walaa quwata illaa billah. jaas lacag ma samayn karaa? maxaan ku yidhaahdaa caan ma noqon karaa? intaasa loo ordaya. waa sanadadii caanka. lacag keliya. naagtaas waxay ninkeeda raalli uga noqotay in uu waxaa sameeya ka war say lacag u helaan. abbaay lacagaa suu biheena uu leeyahy. cali aweesow naga dhaaf waxaa samaynaysid walaalow. yaa abow naga dhaaf, naga jooji. cali aweesow naga jooji waxaas. naagtaana waa kaa ogolaati. yaa inay beesa suubist, beesaan kuusoo shaqeeha abbaay aa tiri. yaa cali aweesow naga jooji, naga jooji walaalow, ma karaynee. gabdhahaasna reerihii dhalay iyo walaalihii la dhashay iyo ha cishadaan. islaamka ilaahay ha ka fariistaan. waa qaawan yihiin, waa caddaysin, waa sidii lagu dhalay, waxba ma dhaamaan. mid surwaal nag ku ah oo calooshii tuura leedaha, calool weynaatay soo taagaysa. mid maxaan ku idhaahdaa laabtii iyo candhadii oo banaanka soo dhigta, taatuuyo leh. mid keliyihii banaysay. yaa mid surwaal naga isku soo dhejisay oo xubinkeedii taranka buuran halkaa kasoo muuqato. laa xawla walaa quwata illaa billah. war isku xishooda. caddaysin baa tiina. waxa weeye mudh iyo gacan waxba ma dhaantaane. isku xishooda oo dadka islaamka ka fariisto oo ummadda ilaahay. war nin yahow naga daa adigana waxaan aada nagu furtay baddan. yaa naga daa caliyow. waan salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.